golaha wakiilada Somaliland ayaa maanta u ballansanaa inay meel mariyaan heshiiskii saddexda xisbi qaran ay ka gaadheen in gudida doorashooyinka lagu kordhiyo 2 xubnood kulankan oo uu shirgudoominayay gudoomiye ku-xigeenka golaha wakiilada Somaliland Axmed Yaashin Sheekh Cali Ayaanle ayaa markii uu furay fadhigaasi waxa uu noqday jawigu sidan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن سيدا الله سعطان وحن كسو بحناي فردقي قولها وكيلة النقوة حلبان دي قبل كأوضل سلل سناك صول يبوهود وحوية dhulbahante warsangeli samaroon ciise qabyaalada adeer in la isku garto oo fasaxan tahay waxaanu ay xildhibaanadii ka soo jeegay deegaanada waxaan uga soo baxnay heshiis ku sheeg la yiri saddexda xisbi qaran baa ku heshiiyay ee ku saabsan doorashada golaha wakiilada sida la socotaan doorashada golaha wakiilada caqabado fara badan waad maqlaysay sidaan wararka ku haynana waxaan maqlaynaa doorashada waxa lagu galeeyaa sidii hore lagu galeeyaa war ilaahay baan ku dhaariyay anigoo kamid ah beelaha qayb kamid ah beelaha inkastoo aanu dhalnahay war 6 kursi baan ku fadhinaa hadaanu beesha dhulbaasanahay hadsi oo dhamana 10 kursi ay ku fadhiyo war ma cadaalad baa sidaas cadaalad maaha mana yeelino waxaan rabaa in sahal lagu socodsiiyo in maxaan ku radaa in la fuliyo heshiiskii saddexda xisbi qaran ku gaadheen maalinta dhaweyto caqabadihii iyaga khilaafkii dhex yaalay tii maxkamadda dastuuriga ahayd ay go'aamisay ee ay xukuntay ee ahayd doorashadii xilligii 2005 waxa lagu gelayaa kaliya ta qaabka maanta loo galiyo maxkamadda dastuuriga maxaan ku radaa go'aankii ay soo saartay wuxuu ahaa in uu xilligaas oo quraata lagu galo ilaa imika tiiun baa taagan oo waxba la iskaga tirin xitaa wixii go'aankii maxkamaddu soo saartay hawshina waa la iska wataa taasaanu markaa anagu ka soo dareennay saaka waxaan leenahay heshiiskaasina nama khuseeyo oo de saddex xisbi qaran way yihiin laakiin muuqaal saddex nin oo ilmaadeero heshiinayo baan meesha ku arkayn bay noqon kartaa ay muuqataa falxumo weeyaan taas bahasha in la wada lahaado oo qaranka la wada lahaado oo asxaabta la wada lahaaday laakiin heshiiska waxyaalihii kale muhiimka ahaa ee saami qaybsiga ahaa ayaa ka maqan hal la soo dhamaystiro oo qodobkii saamiga hal lagu soo daro oo 15 sanadood caqabad taagneyd ahayd oo ilaa waqtiga laga soo hadli jiray ilaa in cigaal laga soo hadli jiray qodobkii ugu miisanaan uu ahaa sidaan cadaalad maaha cadaaladda ha lagu dhaqmo go'aankii maxkamadda hal la fuliyo waxaan maqlayaa maxkamadda loo gudbin doonaa war maxkamaddu ma tu go'aankeega dib u burisaa ku noqotaa sharcina ma hadii maxkamad loo gudbiyo hadii kale doorashada kuma gali karno kumana galayno saamigii Somaliland aan ku lahayn haddaan beelaha koornayaashanahay ayaa loo baahan yahay ha lagu soo daro qodobka mooshin ku saabsan in komishiga laga dhiga 9 xubnood oo 2 xubnood lagu soo kordhiyo oo ku jira heshiiskii xisbiyadu iyo maxaa raadayay wadamadan inaga caawiyo doorashooyinku ay lagu heshiiyey marnaba mooshinkaasi kama hadlaynin saami qaybsiga gobolada arrinkaasina waa arrin jira oo carqalada oo aan mar qura aan laga heshiinin waana ku raacsanay cid aan cidii ka cabanaysa in laga heshiiyo saami qaybsiga gobolada maxaa raadayay golaha baarlamaanka
laakiin waxaanu kala saaray anagu oo aanu inaan isku xidhnayn in commission la helo 9 xubnooda oo arrimo kalaaba u taagan doorashooyinkii dowladaha hoose u taagan doorashooyinkii madaxtooyada u taagan laakiin arrinkaas maxaa dhacday saami qaybsiga goboladu wuxuu u baahan yahay xeer labada gole haddii guurti tahay iyo hadday tahay golaha wakiilada midna xeer ma laha lagu soo doorto saacadda imika Axmed Nuur Ciise Maxamed Bulsho TV Hargeysa.